iyadoo roobab lagu diirsaday ay ka da'een 24 saacadood aynu ka soo gudubnay qaybo ka mid ah gobolada galbeedka Somaliland ayaa haddana waxa ka sii daraysa xaaladda abaarta ee ka jirta gobolada bari ee Somaliland ee galaafatay badi xoolihii ku dhaqnaa deegaanadaasi si aan ugu kuur galo xaaladda abaarta iyo nolosha bulshada deegaanada ay sida ba'an u saameysay abaartu ayaa waxaan booqday deegaanada ceel la helay Xundurgaal iyo Dhudhubdhiilo oo ku yaala waqooyiga gobolka Saraar waxa meesha ka baxay gabi ahaanba xoolihii ay dhaqan jireen dadka ku dhaqan deegaanadaasi waxa go'ay ceelal biyoodiyadii ay ku tiirsanaayeen xoolo dhaqatada waqooyiga gobolka Saraar qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay inuu hal qof haraad ugu dhintay mid ka mid ah tuulooyinkaasi mana jiro wax gurmada oo gaadhay deegaanadaasi marka laga reebo tuulada Xundurgaal oo ay deeq kooban oo raashin gaarsiiyeen jaaliyada Soomaalida ee dalka Norway inta badan bulshadii ku dhaqnay deegaanada ayaa hoy ka dhigtay buulal yaryar oo ka samaysan boco iyo hugaadanuhu xidhaan kuwaas oo aan celinayn kulaylka qorraxda dhaxanta iyo dabaysha qaar ka mid ah bulshada deegaanada ceel la helay Xundurgaal iyo Dhudhubdhiilo ayaa ka warbixiyay xaaladda adag ee ay ku nool yihiin iyo gurmad la'aanta guddiga abaaraha Somaliland ee deegaanadaasi waxay caasho dirir bakor xaaladdan ka cawanayna waxa weeyaan de abaar baa dhacday ma garata abaartu haday dhacdeen ilaahay baa keenay waxaanu doonaynaa markaa dawladda iyo de maaragtay islaamku inay naga taageeraan abaarta na haysatay biyalaanta iyo baadlaantu dadkii ku dhacday reer guuraaga ahaa xoolihii waxa noolina wax ay waxba kama dawaaha dad baa sibira oo aan dababashidan baa jira magacayga la yiraahdo maxamed bakor waxa arkaysaan xoolihii waa ka dhamaadeen ee halka jooga cayaar looma soo gelin marka waxaanu leenahay de wixii ilaahay idin soo dhiibo de degdeg loola soo gaara oo dadka ula soo gaara dadkaas waa liita waa bas halkan baciigama dhisna walaalana malti todoba riyaabaan meel halkaasa oo tuulada xaggu ka xigta ku hortiifada waan idin muuqtaa dhibaato aan qababa magacayga wax la sahal Yuusuf Bakor waxaana ay heerka ceel helay markaan ka warramayo ceel helay hadaba warbixintiisa baahinay xal yaala waxa dad halka jooga ee hada la rag iyo dumar bale aad bay u jilicsan yihiin jilacaya naga biiya ilaahay wixiina taageera haddii naloo yimi oo nalaba soo maray bada saabiyo odaaliyeele waxba noogu yimaadeen annaga hadaalay waxba nooma keenin magacayga wax la yiraahdo aadan aw jaamac xaaji diiriye anigoo ku hadlaya warbixinta magaalada la yiraahdo Xundurgaal jaaliyada Soomaaliyeed ee Norway mucaawiradii ay noo soo direen way noo timi waana u ducaynay ilaahay ha barakeeyo abaari hayso ilaah baa keenay alxamdulillah aanu ku leenahay ina maxamed xuseen reerahan ahayd taa iyo waxa la yiri waa ku waxay u dhimato sabab looga dhigay haraad Ali Daar Maxamed Boos TV Universal Bro